shacabkii reer ogaadeenaya oo aan ka nimid salaantaas naga guddooma haddii aad tihiin reer ifo ifo qaaliga oo aad iyo aad ugu taamayna inaan maalin istaagnayahay ilaah baa iskale mahaddaas oo dhan waan idinka mahad celinayaa inaad maanta fursad noo siiseen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa maamulka jaaliyadda ifo mudane weli uu hogaaminayo iyo dhammaan xubnaha kale maamulka sidoo kale waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiinta xerada iyo ugaasyada salaadiinta culimada dhalinyarada dhammaan gabdhaha ee naqaaliga ah ee madasha fadhiya intaas kadib socdaalkeedu wuxuu ahaa socdaal ka soo bilowday ogaadeenaya waxaan ku xigay inaan soo marno jabuuti raas casayr ilaa iyo raas kalduumi oo maanta aan kusii jeedno badda cas badda indian ocean ayaa maraynaa insha allah socdaal adduunka oo dhan ku baahsan oo ilaa waqooyi cilifka waqooyi ilaa cilifka koonfureed america hadday noqon lahayd australia socdaal aad iyo aad u dheer oo loo qorsheeyey inuu muddo dheerna socdo ayaad nasiib u yeelatay inaad xagga hore ka gashaan taasna waxay ahayd mudnaanta aad mudan tihiin iyo in qiimi weyn aad ugu fadhiyaan jabhadda wadaniga horeynta ogaadeenaya kormeerkeedu insha allah wuu sii socon doonaa siduu sheegay suduur idinkana maanta iyo ilaa beri waan idinla joognaa insha allah haddii aan isku dhaadhaco warbixinta iyo abaabul kormeerkeeda waxyaabaha ugu weynaaye ee ka dhacay ogaadeenaya 5 sano ugu dambeysay waxay ahayd heshiiskii ay onlf la gashay Ethiopia onlf waxay ku jirtay dagaal hubaysan bay Ethiopia kula jirtay heshiis nabada ayay la gashay heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis aad iyo aad u qallafsan laakiin dani ay ka fursan weyday nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam heshiis buu la galay reer quraysheed reer maka kufaartii heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiisyada ugu qallafsan ee adduunka la galo mid ka mid a nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu arkay in hal ay ugu jirto muslimiintii iyo nabiga oo hogaaminayay heshiiskaasi heshiis wuxuu ahaa nabi maxamed lagula heshiiyey dadka isaga ka tega inaan loo soo celinin dadka kufaar ka soo baxana inuu soo celiyo heshiiska horta marka la gelayo maslaxadda ay ummadda ugu jirta in aad loo fiiriyo ayuu mar walba ayaa maxaa ugu jira maslaxad onlf waxay dagaalamaysay 24 sano ayay Ethiopia qori ku dagaalamayeen aad iyo aad bay ugu jabiyeen dagaaladii aan galnay Ethiopia laakiin sanadihii ugu dambeeyay waa ogeydeen markay u adkaysan waayeen xabadii onlf waxay qorteen ciidan Soomaaliyeed waxayna bilaabeen inay dadkii Soomaaliyeed iska hor keenaan onlf markay qiimaysay deegaankii Soomaalida wadankii Soomaaliya loo oran jiray Ethiopia gacanta ku hayso meelihii aan taakulaynta ka helayna ay gacanta ku hayso dadkeennii ay gacan iyo cadaadis farabadan ku dhigtay waxay xabsi gelisay iyo waxay askar ka dhigatay way ka dhigatay dadkeennii markaan qiimaynay siyaasadihii adduunka isbedbedelayay Ethiopiana ay ka soo muuqatay dabayl isbedel ay ka baxeen EPRDF iyo TPLF markay meesha ka baxeen oo Abiy Ahmed iyo isbedelkii Oromadu ay hogaaminaysay ay soo baxeen waxaa noo muuqatay inay fursad tahay inaan ku dayno qalin mabaadi'da ONLF waxay ahayd in qori iyo qalin mar walba haddaad fiirsaan shacairta ONLF ama sumadda ONLF waa qalin iyo qorigu wuxuu ahaa in dariiqa qalinka lagu aado mar walbana qalinka ayay ku timaadaa oo dadku way heshiin markay isdilaan waa la heshiiyaan runtii heshiiskaasi ONLF waxay u aragtay in mid faa'iido fara badan u keenay muddadii aan joognay waxaan tilmaami karaa maalintii aan tegaynay 1 December bay ahayd 2018 magaalada Jigjiga dadkii isugu yimid haddaan dhafoorkooda fiirin lahaydeen aad iyo aad dad u dhafoor xun bay ahaayeen oo cadaadis qalbiga laga dilay oo caqiidada laga dilay oo mabaadi'da laga dilay oo qori afkii iyo jeel in badan oo waxa fadhiday madasha jeelogaadeen muddo 10 sano iyo in ka badan ku jirtay jeelasha ogaadeenaya way buuxeen markii aan heshiiska galnay dhammaan maxaabiistii u xidhnayd ONLF oo dadkoo dhan ba ONLF bay ahaayeen waa la sii daayey ONLF oo ugu jirtay Ethiopia liiska argagixisada way ka saareen
waxaana lagu soo dhaweeyey caleemo qoyan dalkeennii waxaana ka mid ahayd heshiiskii aan galnay natiijadiisii intii heshiiskii ka dambeysay maxaa dhacay deegaankeenu la ogaaleynaya waa meesha ugu nabadgeliyeysan Ethiopia dalkii Ethiopia la yidhaahdo ee 130 milyan ay ku nool yihiin maanta meel nabad loogu seexdo waxaa ka jirta ogaaleynaya dadkeenu way ka soo kasbadeen waxay rabaan inay ka soo kabsadaan dhibaatadii dheerayd ee gumaysigu ku hayay ilaahay mahadii sanadkii ugu dambeeyay waddanku barwaaqo ahaa roob fara badan uu ka da'ay dadku waxay bilaabeen inay beeraha qotaan in nabad iyo barwaaqo ay ku noolaadaan inkastoo jiraan reero ama qabaa'ilo isku haysta raadkii gumaysigu uu abuuray oo ahaa in qabalee dadka waxaa loo sameeyey meel buurana waa loo dhisay oo liyaa hore walba qabadi lagu siiyo beerana lama falanayno waddankeena sanadihii ugu dambeysay si gumaysigu uu gacanta dadka ugu hayo wuxuu sameeyey wax qabalee la yidhaahdo qabaleela waxa weeye dadka meel baa la isugu soo urinayaa reerihii beeraha farin jiray qabadi baa loo qaybinayaa gumaysigu wuxuu uga dan lahaa inuu dadka ku xukumo ceelashii iyo meelihii u dhawaay oo dhan wuxuu ka sameeyey buuran reer hiran baa iskale meeshaas oo qabadi lagu siiyo tii waxay keentay in dadkeennii uu nabad ku wada joogi waayo oo laisku qabsado waad maqasheen dagaallo beeleed baa ka dhacay meelo fara badan waxay ka dhaceen goollo waxay ka dhaceen shabeelle waxay ka dhaceen faafan waxay ka dhaceen jarar waxay ka dhaceen meelo fara badan meel aan ka dhaceen isku qabsiga ma jiro taana waxaa keentay gumaysigu raadkii u abuuray oo dadka u sameeyey meelo qabaleeye iyo meelo lamida heshiiska ayaana laf gashay wuxuu keenay inay ayaana laf noqoto xisbi siyaasi ah oo Ethiopia ka sharciyeysan heshiiskaasi qodobadiisii waxaa ka mid ahayd inay ayaana laf si xor ah uga wadato halgankii iyo mabaadi'dii ay wadatay iyadoo xambaarsan inay Ethiopia gudaheeda si xor ah uga halganto ilaa iyo ay gaarsiinayso ummadda reer waadeynaya xorriyad iyo aayakatashi qodobkaasi si fiican buu ugu hirgalay waxaan xafiisyo waaweyn ku leenahay Addis Ababa waxaan xarun weyn ama xarunta ururku waa Jigjiga caasimadda dowlad deegaankeena dhammaan gobollada iyo degmooyinkana waxay lafku ku leeyahay xafiisyo runtii arrintaasi si fiican bay u socotaa door fiicanna waan kaga jirnaa siyaasadda Ethiopia fikirka ONLF waa fikir la dhegaysto codka ONLF waa cod la dhegaysto oo dowladda Ethiopia ku go'aan qaadato go'aano fara badan iyo talooyin fara badan oo Ethiopia u soo jeedinay oo markii hore diiday markii dambe aragtay inay xal ahaayeen baa ka mid ah heshiiskaas waxaad ka arki kartaa dadkeenu iyo masaajiddaad ka dareemaysaa bil markaan joognay ayay masaajidda bilaab culimmadu maynan hadli karin waqtigii hore dowladda cabdigeeda ay ammaani jireen wadaadkii intuu istaagay masaajidkiisa khudbad jimco oo dhan oo soo qaaday ilaahay cabdigii ha barakeeyo ilaahay maarta yay ahaan jirtay markaan tegnay ayay waxay bilaabeen in ay xaqa u sheegaan dadka laakiin dowladaan ku jirnay diintaan dowlad kaga jirnay halgankii iyo qadiyaddaa dowlad ku jirtay hadda dadkii inaan diinta si sax ugu sheegnaan bilaabeen wadaadadu kolley way xoroobeen iyaga laftoodu dadku qalbiga ayay ka xoreeyeen maanta dadku way hadlaan waa dadkii social media madaxweynaha hadda jooga Mustafa waxbaa laga sheegaa ma dhici jirin waagi hore qofka ka sheega maamulkii hore reerkooda iyo awowgood baa lagu gubi jiray maanta laakiin ha iska jiraan cadaadisyo fara badan ha iska jirto bisaarad siyaasadeed oo aan hadaf lahayn ha iska jirto maxaan ku idhaahdaye siyaasad xumo dowladda hadda ka jirta oo aan ahayn dowlad xisbi Soomaaliyeed matalaysa maaha dowladda uu Mustafa hogaamiyo xisbiga BP la yiraahdo oo Abiy Ahmed madaxda ka yahay ayaa xisbigaas dalka xukuma Ethiopia xukuma hal xisbi baa xukuma xisbigii Soomaaliga jiri jiray waa la baabi'iyey hadda xisbiga kaliya ee Soomaaliyeed ee magac Soomaaliyeed wata shaqeeya waa ONLF weeye xisbiga kaliya ee Soomaali matali doona markii ay isku yimaadaan Ethiopia waa ONLF Mustafa iyo dowladdiisu waa xisbi BP la yiraahdo xisbigaasna waxaa matala oo gudoomiye ah Abiy Ahmed baa gudoomiye ah marka xukuumadda dowlad deegaanka kullu wada shaqayn xumi ma jirto wada shaqayn fiican ma jirto meel iska dhaxdhaxaada nabadan ku wada joognaa
waxyaabo fara badan ay ku qaldan yihiin waan u sheegnaa waan tilmaanaa oo xisbi mucaarada oo tilmaan siiyaan nahay inay ha qaataan ama ayayna qaadanin si wanaaga iyo si nabadgelyaha in lagu wada joogo waddanka in danta ummadda ina laga taliyo in ummaddeena maxaa wadana soomaali maxaa wadana midnimada ummadda in laga shaqeeyo ayaan xoogga saarnaa taas ayaan walaalo ku nahay oon ku wada shaqaynaa guud ahaan deegaankeenna iyo imaatinkii ONLF wax weyn baa iska bedelay ciidankii liyu booliska ahaa oo aad ugu gacan kululaa dadkeenna sidii intii aan dalka ku noqo ONLF ee heshiiska saxeexday way degeen iyaga laftooda isbedel badan baa ku yimid way dadka kontarooladii iyo dhibaatadii ay u geysan jireen way yaraatay aad bay u yaraatay meel isku dhacyadu meelaha ay ka dhacaan maahe kuma badno guud ahaan haddii aan waa soo koobi doonaa howlkana waa kuu yahay saaxiibo badanna way iga dambeeyaan waxaan dardaaran marka waxaan idinka baahannahay mar haddii isbedel waddankii ka dhacay oo ONLF gudihii tegtay oo ay qalin ku halgamayso halganku wuu ka adag yahay xabadii xabad baa larugeeyey wiil baa inaga dhimanayay gabadh baa inaga dhimanaysa laakiin qalinka markii lagu halgamayo siyaasad taageero cod dad baa loo baahan yahay sida Kenya markii doorasho la sameynayo waa aragtay wax abaabul iyo kala orod iyo la galo siyaasaddu waxay u baahan tahay taageero shacab bay u baahan tahay taageero dhaqaale u baahan tahay codkiina iyo dhaqaalihiina ayaa ONLF u baahan tahay shalay waxaa laga yaabaa inaan dhihi jirnay naftoodurayaal baan u baahannahay maanta naftooduruhu waa qofka dhaqaalaha bixinaya waa qofka maxaan ku idhahdaa fikirka bixinaya marka maanta waxaa laidinka baahan yahay haddii ifo oo ahay meelihii aad ka bilowdeen jaaliyadaha Kenya maantana inaad bilowdaan oo halgankaas qalinka lagu bedelay aad taageero buuxda siisaan mid dhaqaale siisaan mid fikrad siisaan mid caqli siisaan mid bulsho oo aad muujisaan inaad taageersan tihiin nabadda waayo qorigeenu kusoo halganay waad aragteen maantana qalinkii ayaan rabnaa inaan Ethiopia kula dagaalano dagaalka qalinka ee nabadda ah in laga wada qayb qaato la taageero ayaan idinka codsanayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin salaamu calaykum